السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنيقي ولا ليال مالين وناكسن قلب وناكسن صبح وناكسن هبين وناكسن عسر وناكسن مغرب وناكسن خير يا عافمات يا برواقي بش ولا ليال أنا دولة أم بانك الله ولا ليال وحنو جيدا دالك يجي وما تدقي حيس ديسي يبديسي يبترول كيسي wixii oo dhan ay saas ciirahayaan inaad dawladdii walaalayaal aad ku dhagan tihiin oo inaad taageerayeen walaalayaal reer waqooyi hadday noqoto iyo reer Jubbaland hadday noqoto iyo reer Mudug hadday noqoto iyo reer Puntland hadday noqoto intaba horta qof u dhashay baan ahay dadka Soomaaliyeedna waxaad og tihiin inay dad walaala ah oo meel kala aadayn ay yihiin oo meel u kala socon marka walaalayaalow dawladda sii daay oo dawladda taageer oo beenta hala joojiyo oo cantar baqashka hala joojiyo oo propagandada hala joojiyo oo ilaahay ha laga baqo dalku naga badan dunyadu naga badan baddu naga badan birigu naga badan walaalayaal adduunyada qof walba wuxuu ku leeyahay 2 mitir oo uu seexdo iyo 2 mitir oo uu galo walaalahayna waxaan leeyahay مدلود waxaan leeyahay iyo madar kicis labadaba waxaan leeyahay oo aan in leeyahay mar iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad iyo mar lixaad markii aad fayoobaydo fanka timaha ku lahayd yaa farasaan laga helin waa mid aan la fuulin dawladnimo waa soo marteen idinkuba miina jeclayn in gargar qamxoyd qarqarka layna haysto oo shaatiga kuleetigiisa layna haysto wixii qalada hal la wada saxo wixii qalada oo wadanka ka jira hal la wada saxo guurto odayaal dhaqameed culumo siyaasiyiin ba qabiil kasta leeyahay waa idinka qabiilada ku dhigani wixii wadanka ka qaldan dawladda hal loo tago hal la saxo hal la hagaajiyo naga daaya dhibka naga daaya ololaha qabiilka naga daaya mushkiladda naga daaya muxuu ahaayay waxyaalaha la ololeynayo meel kasta qof kasta Soomaaliya waa inuu meel alla meeshuu raba tagi karo hadda ayaan dhaweyd markii la lahaa madaxweynaha Soomaaliya wuxuu tagayaa Hargeysa oo reer maxay diideen reer Somaliland ayaguna waa dad Soomaaliyeed dhibaatana ku dhacday Soomaaliya oo dhan ku dhacday meel ay isku dhicin male gobolada dhexe annaka baraagaana la ku gura waana la qaxiyay wax kasta dhacay laakiin walaalayaal yaa ka maqnaa saraakiisha nin walba ku jiray waa la is yaqaanaa qof ka maqnaa ma jiro waa la is wada og yahay mar kastaba Soomaali meesha ay ka murgaca tahay oo dhibaatadu ka hayso oo ka guntan tahay waxa weeye waa markii qof shaatiga intuu u soo gunta u soo gashado aan laga daba tagaynin walaalayaal reer Puntland bay ku dhacday oo ogtihiin in la xasuuqay oo baraagoodii sun lagu shubay oo la baabashay oo ay qaxeen gobolada dhexaad ogtihiin walaalayaal wixii lagu sameeyay idinkana waa leeyni ku sameeyay anigu markii leeyni ku sameeyay 5 bari baan Sacuudi Carabiya joogay markii Somaliland isaaq markii la xasuuqayay ilmahaygo yar oo milciyaabaan ka tagay oo intaan nin kala tagnay oo iga reebtay markaasaan guri gabar in adeertay aan ku soo degay saas TV-gi fadhigii aan fadhiyay baan waxaan arkay diyaarado Soomaaliya duqeynaya af Carabiga ma aqaan hoos waxa ku qoran luqadda Carabiga markaasaan ku yiri kaala qadiijo gabar in adeertay hadda magaalo Toronto waxay degan tahay dalka Canada magaalo gaar ahaan magaalada Hamilton la yiraahdo Hamilton markaasaan qadiijo dalkii ama xaara ku soo duushay ilmahaygi Allah aruurtay yaryarayd mana carari karaan gabar kale in eedaday dhashay oo aad wax qaan boqolkii kale ka soo baxday maxaa tiri habar yorkaalay wadankii waa la duqeynayaa markaas Carabiga noo turjunta ay teeno maaha Muqdisho maaha waa Hargeysa oo Hargeysa ma Itoobiyaanka baa galay haddaan sii fiirinay ma ya habar diyaaradu waa Soomaali xidigti Soomaaliya diyaaradaha ku taala anigii naxdin alla waa maxay diyaaradii Soomaaliya duqeynaya Hargeysa 88kii bay ahayd bishay ahayd ma xasuusto waa ognahay wixii dhacay oo la og yahay laakiin wax kasta way dhacaan wax kastana daaway leeyihiin ya geeri ilaahay kuugu talagalo qabri lagu wada baan lahayn muxuu ahaayay baan daawo lahayn laakiin inta kale oo dhan daaway leeda Soomaaliya oo dhan dibku waa wada gaaray gobolada waxaad ogtihiin baa ka dhacay
feera qumumux ma maqasheen reer hiiraan sarwajigaa laga bixin jiray muxuu ahaaye gaalkacyo ilaa iyo dhulsamareeb dhexdooda baraagaha lagu guray 400 oo wiil waa ogtiin hal maalin oo dugsileeyaha la xasuuqay oo reer cadaadaa walaalayaal soomaali haddaad rag tihiin oo idinka suu dadka xigto madaxweynaan nahay baa leh meel baadiyaayo bannaan inta la iskugu tago oo xoola la qasho maa la xisaabtamo gardarradu dad bay raacine markaad le hadda wiil muxuu ahaaye adeerkiisa jiray maxamed siyaad nin walba qabiil buu ka dhashay nin walba ilaa qabiil buu ka soo biyey وقبائل وشعوب الصومال اللي تعارفوا وإلهي صون القرآن كنوب مشيقين ويل كان موحى وعرسنا يسين محمد سياد بك قبيلها يا وقال من كان أنا وحان أن فرمشن في عنبان كهيا وأن الصومال لماذا تشعل وأن ودنية وأن داعدة يعني ليني إنقاذ ماذا حدينا أدلباتيسين ومدد قال تنقطي أيقونا دادكي بنانكي دادك كان صدين دادكي قدها كتيري أيقونا هالكاسي كمرق عدين dadkii gudaha ku jiray may soqoran ee dadkii banaanka ka yimid bay qorteen marka midii Soomaaliland baan ka hadlay aan ku jiray yaan habba meel u boodboodini walaalayaal isaaq dhibaato waa loo geystay oo waa ku dhacdo waa loo geystay laakiin walaalayaal wax kasta la heshiiyay waxaan wadahayn qof laga xabaalayo mideeda kale markaad madaxweynaha Soomaaliya diidaysin Soomaaliya inuu qayb yimaado aqligiina soo shaqeynaya aaw culumadii aaw sheekh Idris أو شيخ مصطفى سبحان الله أو قاشين أو حقرتكيني يا أندش كوبر نك اللي يرادو يا أو أفرتني أفر دل صوماليا أدونك إسلام عالم إسلام مضنوعك أو CNN